Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran waxaan maanta waan baxayaa magaalada Xamar oo aan kaga qayb galayo shirkii ay isugu imaanayaan beesha caalamka iyo madaxda Soomaalidu iyo shirkii amniga qaranka oo arrimaha ugu muhiimsan laga hadlayo ay noqon doonto nabadgelyada dalka xasilinta iyo geedi socodka dawladnimada Soomaaliya shirkaas marka oo laba maalmood uu yahay shirkii madaxda qaranka ka bacdina shirkii beesha caalamka iyo madaxda Soomaalida oo dhammaan doona bisha shanteeda ka bacdina insha Allah waxaan rajeynayaa si nabadgelyo dalkan ugu soo laabano waxaan kula dardaarmayaa dadka in nabadgelyada iyo horumarka laga shaqeeyo lana taageero guul iyo khayr baan rajeynayaa iyo soo noqosho wanaagsan